walaalkayga muslimka ahow weligaa ha dulminin qof walaalkaa ah, weligaa ha xaqiran. qisada tan ayaanu walaalayaal idiin soo gudbinaynaa. maalin maalmaha ka mida waxaa jiray nin aad iyo aad u xaqiiri jiray, nin maskiinoo seexan jiray iriddiisa, dukaanka iridkiisa. maalin walba maskiinkan yari wuxuu seexdaa iridda ninka kan dukaankiisa. isna wuu xaqiraa, wuu dulmiyaa, wuu garaacaa. subaxii markuu dukaankiisa furo, mar biyuu ku sayriyaa oo ku kiciyaa, mar laad buu araxda kaga dhuftaa. xaqiiqatan waxaad mooddaa inuu aad iyo aad u dhibsaday, waxaad mooddaa inuu maskiinkan aad iyo aad u xaqiirsaday. laakiin arrin mucjiso ah baa dhici doonta, arrin ka yaabisaa ku dhici doonta ninka kan miskiinka maalin walba dulminaya. miskiinka waxba ma siiyo, iridkiisa ayuu seexdaa, ag fadhiistaa. maalin walba cunto ayuu ku hor cunaa, waxba kama siiyo. walaalayaal, ninkii sida uu maalin walba u dulminayay miskiinkii, oo maalin walba laad marku dhufanayay, wuxuu leeyahay hadeer war waxaan maalin walba maxaa nagu salliday, makaadii uu nala soo ag-aadaya. laad buu ku dhuftay. miskiinkii aad iyo aad buu xanuunsaday, aad iyo aad buu arrintaa uga xumaaday. arrinta dhici doonta walaalayaal waxay tahay arrin dadkoo dhan ka yaabin doonta. wallaahi walaalayaal, cibra arrintan idinku sugan. maalintii dambuu dukaankii furay, imise miskiinkii ma ag hurdo. maalin labaadii buu furay, imise sidii oo kale, imise ma joogaba. hoos buu eegay, wuu shakiyey. maalin saddexaadii buu haddana furay, hoos buu eegay, imise miskiinkii ma joogo. subxaana allah walaalayaal, waxaa dhacda hareerihiisuu eegay ninkii daalimka ahaa. wuxuu isleeyahay aawey maxaa ku dhacay, mar walba adigu ku soo ag seexan jiraye, islaantan waxay leedahay ma waxaad raadinaysaa miskiinkii. wuu shakiyey, wuxuun baa ku dhacay buu yidhi. wallayo bille, kaamiradii ayuu eegay. kaamiradii markuu eegay ee iridka waxaa dhex jooga sheegi jirtay, wuxuu isiri kombyuutarkiibuu furay. arrin mucjizaa waa walaalayaal uga soo dhex bixi doonta. wuxuu arkay wakhtiyadii buu soo xasuustay uu dili jiray oo kaamiradu ka dhex tustay. miskiinka uu dulmin jiray wuu sii dhaafay. kaamirada wax cajiiba uga soo dhex bixi doona walaalayaal. miskiinku habeenkii dukaankiisa agtiisa aad buu u nadiifin jiray, laa ilaaha ila allah. isna waa uu garaaci jiray. miskiinkuna habeenkii dukaankiisa ayuu u ilaalin jiray, tuugada ayuu ka celin jiray. wakaa bal walaalayaal eega, oo miskiinku dulmin jiray. hadda ayuu qoomamoonaya walaalayaal. islaantii gabadhan subaxii ayay dukaanka ka wada shaqeeyaan ninka daalimka. habeenkiyadu cunta u keentaa, way u naxariisataa. bini aadamku kale naxariis badan. arrin kalaa uga soo dhex bixi doonta meesha. maalin maalmaha ka mida ayaa mid ku kaajaya meheradda agtiisuu ka celiyey. wuxuu soo xasuustay subaxii uu lahaa sanka saa dhahayay oo uu ku xaqirayay miskiinka. sidoo kale fideoga wuxuu ka dhex arkay tuuga ayaa soo weerartay dukaankii. imise ninkii miskiinka ahaa ayaa damcay inuu tuugadii ka celiyo dukaanka. way ka adkaadeen tuugadii. miskiinkii way garaaceen tuugadii. isna subaxii wuu dulmiyaa, isna habeenkii ayuu tuugada uga celinayaa dukaankiisa. miskiinkii ayay tuugadii garaaceen meel walba laad iyo feer kala daaleen ilaa ay nafta kaga jaraan. kanaa midi la soo baxaya, dhabarku ka gelin doonaa. allah, wuxuu soo xasuustay wakhtiyadii uu maagi jiray, uu biyaha ku shubi jiray. miskiinku daraaddii buu u dhintay, isaga aawadii buu u dhintay. isagoo dukaankiisa u ilaalinaya, tuugada uga difaacaya. walaalkayga muslimka ahow, qof weligaa ha xaqiirin walaalkayga muslimka ahow. lacalahu inuu adiga faa'iido kuu yahay aadan ogeyn. walaalkayga muslimka ahow, hadhow waxba kuu tari mayso inaad murugooto. nadaamo iyo qoomama waxba kuu tari mayso. masaakiinta ha dulmin. miskiinkii halkii buu ku geeriyooday.
allah walaalkayga ilaahay subxaanahu watacaala dulmiga naftiisa wuu ka xarimay falaa tadaalamuu ayuu yidhi hays dulminina yaa cibaadi addoommahaygiyo fiidowgan walaalayaal cibra ayaa inoogu sugan ilaahay dartii u sii gudbiya ilaahay dartii u sheergareeya